بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo imaqlayso meel kasta ay joogaan waad salaaman tihiin. Maanta shirkayga jalaad wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii shalay ka dhacday xarada ciidamada tababarka ugu jireen ee Muqdisho. Arrintaas ummadda Soomaaliyeed aad ugu xumaatay. Waxaan rabaa in ma aragtay hadal yar ka jeediyo. Marka hore waxaan leeyahay dhammaan intii ku dhamatay Allah u naxariisto, intii ku dhaawacantay Allah caafiyo. ilaahay baan ugu baryaynaa caafimaad degdeg ah. Waxaan runtii ummadda Soomaaliyeed muddadan dib aad ugu faraxsanayday sidii ammaanka isu bedelahayo ciidamadan qalabka sidii iyo dawladda u howlgaleen, yacni si ummadda Soomaaliyeed xorriyad u helo, nabad u hesho. ma aragtay yacni dadaalkii la geystay oo aad loogu faraxsanaa. ma aragtay in shalay arrintaas si kadis ah markay arrintaasi timid aad loogu xumaaday. ummadda Soomaaliyeed aad arrintaas ma aragtay dareen kale ugu abuurtay. runtii waan u mahadcelinaynaa dadkii ammaankaas ku shaqeeyay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed madaxda dawladda aan loo kala harin intii dadaalkaas geysanaysay muddada hadda lagu jiray isbedelka la dareemay keentay aad aan ugu mahadcelinayaa. waxaan ambaaraynaynaa falkii fulinimada lahaa, naxariis darrada ahaa, diin laawada ahaa oo shalay dhibaatadaas lagu gaarsiiyey ciidamada qalabka sida ee ummadda Soomaaliyeed u shaqeynayay xorriyadooda iyo noloshooda iyo sharaftooda difaacayay in ma aragtay bahal ahlu naar ah oo nafti hilaaga ah soo dhaxgalo oo dadkaas sida lagu dhabaatay aad iyo aad baan u ambaaraynaynaa, waana ka xunnahay. waxaa kale rabaa inaan ka hadlo meesha shalay ragaas lagu baabi'iyay, lagu qarxiyay meel iska imaan kara ma aha, meel caadi ah ma aha. ragaan inay naftooda u xuraan dalka diyaar ay u ahaayeen, dadkoodii dalkooda u dhintaan, dhiigooda u xuraan diyaar ay u ahaayeen. haddii dagaalku dhiman lahaayeen ummadda Soomaaliyeed Allah u naxariisto unbay dhihi lahayd, yacni wax niyaduma kama qabi lahayn. ayagana waa diyaar inay u shahiidaan, u dhintaan ummadooda iyo dalkoodii dadkoodii. laakiin in ay xaladooda joogaan intii bahal ma aragtay fuli ahlu naar la soo darooqay ee waxba ogeyn soo dhaxgalo oo la halaago, runtii wax loo adkaysan kara ma aha. meeshaas waxaa ka muuqata mas'uuliyad xumo ka muuqata oo ma aragtay waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalahayo aad u sharaf badan waa ku jiraan xaqiiqada waa ogahay. laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn ay kaga jira arrintaas. wax loo dulqaadan karana ma aha. yacni ciidan weliba markuu cusub yahay oo markaas la tababarayo waxaa ku jiri karaa dad aan la garanaynin, dad oo ma aragtay hataa soo darsadeen, yacni argagixisada soo darsatay ayaa ku soo dhexgali karaa. laakiin ciidan isyaqaano hal guuta u badan oo kul isyaqaano qof inta iska soo dhexgalo isqarxiyo, arrintaas shaki weyn ay abuurtay. saraakiisha iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa, waxaan farayaa, si adag u farayaa arrintaas baaritaan xoog in lagu sameeyo. dembiilayaasha isku dhex qarinayo ciidamada qalabka sida oo cadowga u fududaynayo in gacanta lagu soo dhigo, cadaaladdan la soo hortaago. wax la ogolaan kara ma aha in ma aragtay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed kalsoonida laga dilo meelihii ammaanka xaradooda dhexdooda waxaas amal u soo dhexgalaan, wax la aqbali kara ma aha. waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa jawaab lagu qanci karo in ka soo baxdo meeshaas. intaasaan rabaa inaan yiraahdo. waxaana sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arrintan raadkeeda iyo waxay tahay oo cad, taasna oo fadhiina. aad iyo aad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.